madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta safar ugu kicitimay dalka jamhuuriyadda Djibouti. madaxweynuhu waxa uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Cigaal International Airport waxaanu ka hor intii aan halkaasi ka dhoofin salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland. safarka madaxweynaha ayaa qaadan doona maalmo kooban waxaana martiqaad rasmi ah u soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele. waxaanu safarkan noqon doonaa mid sii xoojiya wada shaqaynta labada dal ee walaalaha ah ee ay jaarnimadu ka dhaxayso iyadoo ay labada madaxweyne la filayo inay ka wada hadlaan xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Djibouti. madaxweynaha waxaa safarkiisa ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan, taliyaha ciidanka badda Soomaaliland Sareeye Guuto Cabdi Xirsi Ducaale. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi safarkiisa ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu dalka dabadiisa ugu ababaxo waxaanu safarkani ku booqanayaa wadanka Djibouti ee aynu jaarka nahay. socdaalka madaxweynaha ayaa ahaa mid si beeqaam saraa loo diyaariyay ka hor intii aanu halkaasi ka dhoofin. Cabdikariim Siciid Saalax, Home Cable TV, Hargeysa.